بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cantar Sayid Xuseen, waxaan ka tirsanaa xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho. Amba waxaa nagala soo xiriiri kartaa taleefanka shaashada hortaada ka muuqdo. maanta cashirkan haddii la yiraahdo waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano sum ifs function. cashirka horey waxaan uga soo hadalnay sum if, waxaan kusoo sheegnay in uu ahay in aan sameyno isku geyn annagoo markaan haysano shardi amba condition annagoo isticmaalayno. dabcan wuxuu noqonayaa marka in aan maanta ka hadalno wax loo yaqaano sum ifs function. wuxuu noqonayaa inaan wax isku geyno annagoo isticmaalayno wax ka badan hal shardi. oo sum ifs function ayaa wuxuu noqonayaa marka inaan isticmaali karno waxyaalo fara badan amba shuruud fara badan inaan u isticmaali karno markii aan sameynayno isku geynta. inta waxaa inoogu yaalo cell journalkii oo aan soo isticmaalaynay. inta waxaa inoogu yaalo marka tablekan ayaan rabnaa in aan sameyno isku geyn. isku geynteena markaan waxay ku qotontaa in aan fiirino laba condition amba laba criteria. oo waxaan fiiri doonaa goboladana waa fiiri doonaa haddii la yiraahdo gobol walbaba intii dakhli naga soo gashay annagoo u eegayno mobeelada aan ka iibinay. inta waxaa noogu yaala 3 mobile, inta waxaa noogu yaala 3 gobol. oo hadda meeshaan haddii aan ku sameyno isku geyntaas waxay noqonaysaa lacag dakhli naga soo gashay annagoo fiirinay gobolkoo naga soo galay iyo alaabta aan ka iibinay noociisa. oo alaab walbaba waxaan arki doonaa lacagta naga soo gashay ayaan arki doonaa haddii ilaah yiraahdo. inta ayaa marka waxaan ku sameynaynaa functionka haddii la yiraahdo. waxaan ka bilaabi doonaa calaamada equal sign-ka ayaan isticmaalaynaa si aan meesha usoo gelino formula amba function. intaa wixii ka dambeeya sum ifs ayaan leenahay bacdama aan rabno inaan isticmaalno wax ka badan hal condition amba hal criteria. dabcan saa dareemaysid sum ifs functionka qaab dhismeedkiisa wax yar ayuu ka gedisan yahay sum ifta aan hore usoo aragnay. wuxuu ka bilaabayaa sum range-ga oo ah meeshaan rabnay isku geynta inaan ka sameyno, waana dakhliga ina soo galay ayuu noqonayaa. columnkaas ayaan marka waxaan ka sameyn doonaa isku geynta. dabcan titleka ma soo qaadanaya, laakiin meesha nambarada ayaan soo qaadaya. control shift down arrow ayaan taabanaya, F4 ayaan leeyahay si aan u xiro. bacdama aan rabo formuladan laba jiho inaan u koobiyeeyo, hoosna inaan u jiidaan rabaa oo aan u koobiyeeyo, dhinacana inaan u koobiyeeyo ayaan u baahnaa. bacdama marka hoos iyo gees aan u koobiyeynayo waxaan ku qasbanayaa marka in aan xiro range-gaani dhammaantiis. oo waxaan u diidayaa marka in uu socdo. marka formulada hoos u koobiyeynayo hoos inuu dhaqaaqa ma rabo, markaan geesaha u koobiyeynayo dabcan inuu geesaha usoo dhaqaaqa ma rabo. intaa wixii ka dambeeya coma ayaan taabanaya si aan marka qeybaha kale ee functionka uu ka kooban yahay aan u tago. qaybta ugu horeysa wuxuu ku weydiinayaa marka criteria range 1 ayuu ku weydiinayaa, taasoo micnaheeda tahay meelaha aad ka sameynaysa marka criteria-yaasha aad rabtid marka inaad u isticmaasho isku geyntaada. bacdama aan meeshaan ku haysanaa laba criteria range kala duwan, oo intana goboladii ayaan ku haysanaa, intana productiga ayaan ku haysanaa. meelihii marka aan kasoo qaadan lahayn oo aan kasoo fiirin lahayn bacdama aan rabno waxaan ka bilaabi karnaa midka aan rabno ayaan ka bilaabi karnaa, amba gobolka ayaan ka bilaabi karaa amba alaabta ayaan ka bilaabi karaa. haddii aan marka gobolka ka bilaabno waxay noqonaysaa marka meeshii gobolka uu ku qornaay in aan tagna ayay noqonaysaa oo ah region ayay noqonaysaa. hal mar ayaan klik siinayaa, control shift down arrow ayaan leeyahay, F4 ayaan taabanaya si aan marka aan u xiro. bacdama aan rabo formulada hoos iyo geesaha inaan u koobiyeeyo isla markaasna gobolka inuu dhaqaaqa aanan rabin. bacdama hadda criteria range-ga gobolka aan kasoo dhigay waxaan ku qasbanayaa marka criteria-da inaan isticmaalo region-ka. haddii aan kasoo dhigi lahaa description-ka waxay noqon lahayd marka inaan description-ka isticmaalo. criteria-da marka waxaa muhiim ah in aad isweydiiso laba su'aalood. bacdama formulada aan rabno hoos iyo geesaha inaan koobiyeyno, markii hoos aan koobiyeyno dabcan inuu gobolada socdo miyaan u baahnaa oo gobolka bari oo ka tago markii uu godkaan soo istaago oo gobolka baay uu fiiriyo. dabcan waa sidaan u baahnaa. marka row ayaan ku soconaa, rowgeena waxaa u taagan numberka ayaa u taagan oo ah 23. marka 23daas hortiisa calaamada dollar sign-ka ma dhigayno oo ma xireyno. su-aasha labaad aan isweydiinayno waxay noqonaysaa haddii aan formuladan geesahan aan u koobiyeynayno dabcan in uu socdo miyaan u baahnaa oo bari oo ka dhaqaaqo oo godkaan hadda formulada aan ku xirayno oo ah K23ga inuu imaado miyaan u baahanahay? waa maya. oo column-ka in uu u dhaqaaqa ma rabno, waana godkaan waa godka aan ka hadlayno. marka F4 ayaan taabanaynaa, kow mar kale ayaan taabanaynaa, mar saddexaad ayaan taabanaynaa oo ah si aan calaamada dollar sign-ka aan u keeno xarafka J-da hortiisa. hadhow marka formulada markaan geesaan u koobiyeynayno wuxuu taagnaanayaa dabcan J-da ayuu taagnaanayaa, laakiin markaan hoos u koobiyeynayno wuu soconayaa oo 23 J23 wuu ka tegayaa oo J24 ayaa tegayaa. waana habka aan uga baahannahay inuu u dhaqmo. coma ayaan taabanaynaa,
criteria range 2 wuxuu noqonayaa marka productiga ayuu noqonayaa product descriptionka ayaa hal mar click siinaya control shift down arrow ayaan leeyahay F4 ayaan taabanayaa si aan u xiro comma ayaan taabanayaa waxaan imaanayaa marka qaybta aan rabno in aan ka doorano oo ah qaybta productiga hal mar ayaan criteria click ku siinaya waana criteria labaad ayuu noqonayaa oo aan rabno in aan xisaabtan ku soo sameeyno asaga naftigiisa waa inaan laba su'aal isweydiinaa formulada markaan hoos u koobiyeynayno dabcan Nokia inuu ka dhaqaaqo oo hoos imaado godkan K23 inuu imaado miyaan u baahnaa bacdama hadda aan taaganahay K22 waa maya dabcan waxay noqonaysaa marka in aan rowga aan ka xirno rowgana waxa uu taagan numberka ayuu taagan F4 ayaan taabanayaa mar labaad ayaan taabanayaa si aan u xiro rowga oo u taagan numberka oo ah 23ga su-aasha labaad is weydiinayna waxaa formulada markaan geeska aan u koobiyeynayno dabcan inuu dhaqaaqa miyaan rabnaa oo K uu taagan yahay 22 L22 inuu taga miyaan u baahanahay dabcan waa u baahanaa oo markaan godkan imaano waxaan rabnaa in aan xisaabteeda isku geyno gobolka bari Panasonic sidoo kale gobolka bari Samsung marka waxaan dhaafeynaa columnka waxaana u taagan xarafka ayaa u taagan oo xarafka hortiisa marka dollar sign ma dhigayno bisha ayaan xiraynaa control enter ayaan leenahay si marka formulada meeshaas inuu taagnaato hoos ayaan u koobiyeynaynaa intaa wax ka dambeeya waa sii deynaynaa muuska haddana waxaan qabanaynaa meesha aan ka koobiyeynayna oo marka muuskeena calaamada balaaska u noqdo waxaan u jeedinaa dhinaca midigta ayaan u jeedinaa si aan ugu koobiyeyno godka ugu dambeeya haddaan imaano F2 ayaan taabanaynaa si aan iskaga hubino in ay formulada si sax ay u shaqeynayso saa dareemaysid boxyadii maysan dhaqaaqin oo si sax ayay u taagan yihiin bacdama aan soo wada xiray criteriadana si sax ayay u shaqeynaysaa oo godka ugu dambeeya dabcan waxaa laisku geynayaa gobolka Banaadir iyo alaabtan Samsung wixii aan ka iibinay marka saa dareemaysid functionka si sax ayuu u shaqeynayaa haddii aanan isticmaali lahayn cell reference wax loo yaqaan amba aanan godadkan xirxiri lahayn waxaan ku qasbanaa lahay intaan oo god inaan formula aan ku qoro ayaan ku qasbanaa lahay waxayna ahaa lahayd inaan qoro 9 formula si aan marka 9 formula aan u qorin waxaan qoray oo kaliya hal formula halkaas formula ayaan hoos u soo koobiyay geesana u koobiyay ayada ayaana iga fududeysay intaan qori lahay 9 formula oo waqtiga ay iga qaadan lahayd haddii aan marka faahfaahin yar ka bixino waxay noqonaysaa marka haddii aan fiirino gobolka Bayo kaliya oo kale gobolka Bay Nokia $39 oo iiba ayaan sameynay amba dakhli ayaa naga soo galay Panasonic dabcan gobolka Bay waxa naga soo galay $50 oo dakhli ahaan ayaa naga soo galay haddii aan rabno in aan lacag aan ka dhigno dabcan waa harka ayaan wasaaraynaa waxaan imaanaynaa generalka ayaan furaynaa intaa wixii ka dambeeya currency ayaan leenahay amba control shift 4 waa taaban karnaa bacdama decimal point uusan jirin waan yareey karnaa oo degrees decimal point ayaan isticmaali karnaa waxaan kaloo sameyn karnaa isku geyn ayaan sameyn karnaa oo intaan ayaan har saaraynaa controlka ayaan qabanaynaa sidoo kale intaan ayaan har saaraynaa waxaan isticmaalaynaa alt equal ayaan leenahay intaa wixii ka dambeeya wuxuu sameynayaa marka isku geyn degdeg ayuu sameynayaa inta hadaa fiirisid dabcan wuxuu isku geeyey intaan ayuu isku geeyey hoos hadaa fiirisid wuxuu isku geeyey intaas ayuu isku geeyey oo waxay noqonaysaa marka hadda inaan si kale u dhigno Nokia 550 ayaa iibinay Panasonic waxaan iibinay 245 ayaa dakhli ahaan naga soo galay iibkiisa Samsung waxay noqonaysaa 635 in uu naga soo galay dakhli ahaan iibkiisa haddii aan dhinacaan aan ka fiirinayno totalkan waxay noqonaysaa gobolka bari inuu naga soo galay 539 sidoo kale gobolka Bay waxa naga soo galay 385 sidoo kale waxa gobolka Banaadir naga soo galay 506 dakhli ahaan dhammaan dakhligeena soo galna 1430 waaye waana waxa hadda aan ku xisaabtamayno noqonaysaa kaasi ayaa marka wuxuu yahay in aan isticmaalno some ifs function inaan isticmaalno ayay noqonaysaa oo sidaan ayaan u isticmaali karnaa cashirka dambe ayaan waxaan ku arki doonaa haddii la yiraahdo qaabka duwan oo aan u isticmaalayna some ifs function haddii la yiraahdo maanta inta ayaan ku hakinaynaa inta cashir lamida aan ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh